dalka Soomaaliya wuxuu alla ku manaystay khurba joog fara badan oo ku kala nool dunida dacaladeedii. khubarada bulshada waxay yiraahdaan khurba joogtu waxay hanti weyn u yihiin dalka Soomaaliya. taariikh ahaan khurba joogta Soomaalida waxay soo mareen 3 marxaladood. marxaladda koowaad wuxuu ahaa intaan dalku xornimo qaadan badmareenadii Soomaalida ee ka shaqeynayay maraakiibta, kuwaasoo badankoodii degay dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalooyinka dekedaha leh sida Cardiff, Sheffield iyo London. marxaladda labaadna wuxuu ahaa shaqaalihii Soomaalida ee u shaqo tagay dalalka Khaliijka 1970 iyo 80-meeyadii. marxaladda saddexaad ayaa ahaa qaxootigii ka qaxay dalka markay dagaaladu sokay dilaaceen, waana dadkii ugu tirada badnaa ee dalka ka safray oo lagu qiyaaso in ka badan 2 milyuun. badankoodii waxay degeen dowladaha dariska ah, in badanna waxay u safreen dowladaha reer galbeedka sida Yurub iyo Mareykanka iyo Australia iyo wixii la mid ah. khurba joogtu ku nagaaday dowladaha dariska ah ee qaaradda Afrika waxay aad uga soo dhalaaleen suuqyada ganacsiga dalalka, waxayna qayb weyn ka noqdeen kobaca dhaqaalaha ee dalalka ay martida ku yihiin. sidoo kalena khurba joogta Soomaalida ee dalalka reer galbeedka ku nool waxay qayb weyn ka noqdeen fulinta adeegyada bulshada sida caafimaadka iyo gaadiidka dadweynaha, oo waa dhaqaatiirtii, kalkaaliyayaashii, darawallada basaska iyo tagaasida iyo wixii la mid ah. sidoo kale khurba joogta Soomaalida waxay ka soo dhalaaleen dhanka siyaasadda dalalka ay martida ku yihiin, oo waxay soo saareen xildhibaano baarlamaan, xildhibaano deegaan degmo iyo meeyaro oo magaalooyinka ee dalalka Yurub qaar ka mid ah. dalka hooyana khurba joogta siyaasadda qayb weyn ayay uga jiraan oo jagooyin sarsare ayay ka hayaan. si kastaba ha ahaatee, khurba joogta Soomaalida dalkoodii aad iyo aad ayay ugu xiran yihiin dunida, meeshay doonaan ha ka joogaane waxay ugu xiran yihiin dhanka xawaaladda, guurka, ganacsiga, siyaasadda iyo wixii la mid ah. laakiin bulshada Soomaalidu waxay maanta baahi weyn u qabaan isku dubarid iyo wada shaqeyn ka sareeya midka hadda jira, una jihaysan horumarka dalka ay martida ku yihiin iyo dalka hooyaba. dadaalka khurba joogta oo maanta badankoodii waa dadaal keli ah. dadaalkana hadduu keli yahay, saameynteeda ama miro dhalkeedu wuu yar yahay. sidaas darteed khurba joogta Soomaaliyeed waa in loo abuuraa bii'ad u suuragelinaysa wada shaqeyn iyo iskaashi miro dhal badan, laguna wada reyn karo dadaalkoodii iyo xirfadahoodii. taa waxaa lagu gaari karaa in la helo dallad ay ku diiwaan gashan yihiin xirfadlayaasha, ganacsatada, iskaashatooyinka, hay-adaha iyo jaalidaha Soomaalida kulligood. rikoorka diiwaangelintan waxay suuro gelinaysaa in si sahlan loo weeleeyo afkaarta, layskuna dubarido dadaalkoodii hadduu ay idmo. dalladaha sidaan oo kale waxaa adeegsada khurba joogta sida bulshada Yahuudda, Hindida, Turkida iyo kuwa kale. taana waxay u suuro gelisay inay yeeshaan awood dhaqaale iyo mid siyaasadeed dalalka ay martida ku yihiin. waxay kaloo si dadban u kaalmaysay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalkooda hooyo. cilmi baaris uu sameeyay Dr. Cloud Anderson ayaa gunaanadkeedii noqday in bulshada Afrikaanka ah ee dowladaha reer galbeedka ku nool uu halkoodii dollar ama euro ama pound uu dhexdooda ku wareega kaliya 1 ilaa 2 jeer, meesha bulshooyinka kalena sida Yahuudda, Hindida, Turkida uu halkoodii dollar ama halkoodii euro ama pound dhexdoodii ku wareega 1 ilaa 18 jeer. taasoo u horseeda inay awood dhaqaale ku yeeshaan dalalka ay martida ku yihiin. si kastaba ha ahaatee, khurba joogta Soomaalida waxay maanta ku jiraan waqtiga ugu habboonaa oo ay fulin karaan in la helo dallad diiwaangelisa oo weelaysa xirfadlayaasha, ganacsatada iyo hay-adaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo khurba joogta. maxaa yeelay teknolojiyadda saamixi lahayd way jirtaa, xirfadii loo baahnaa way hayaan khurba joogta. jiilka ku dhashay qurbaha xirfadahoodii kombiyuutarka ama website-ka iyo kuwaasoo dhan aad ayuu u sareeyaa. sidoo kalena quluubtoodii wuu ka talaalan yahay boogta dagaalada sokeeyo. waa dad qalbi furan oo caqli furan,
waxaa kaloo jira hay-ado hore u jiray oo qurba joog ah oo howshan ku guda jiray una baahan in la xoojiyo hadduu eebbe idmo. ugu dambayntii waa in la helaa hoggaan haga qurba joogta, wadareeya dadaalkoodii, weeleeya afkaartoodii, una jiheeya danta guud iyo horumarka dalka hadduu eebbe idmo. waa in la helaa taageerada dowladda iyo ganacsatada si loo hirgeliyo dallad caalami ah oo ay leedahay qurba joogta Soomaalida. sidoo kale waa in la horumariyaa xiriirka ka dhexeeya qurba joogta ku laabatay dalka iyo walaalahoodii dalka aan ka bixin ee dalka joogay. waa in la turxaan bixiyaa malaxumada dhexdooda yaala, lana tusaa inay iskaabayaan oo ay iskaamilayaan oo ay isdhamaystirayaan hadduu eebbe idmo. diyaasbara midaysan ayaa dalka miday kara oona daryeeli kara. waa inaan ku dhaqannaa halku-dhaggii ahaa haddaanan indhaha iska arki karina, bal uun danta guud isu garab socda. afkaarta way kala duwanaan karaan, waa caadi, laakiin waxaa muhiim ah in danta guud laysu garab galo. ogaada, shinnida markay isqabataa malabkeedii la helaa. baaraka allaahu fiikum. waa walaalkiin Baazil Bunsuri iyo shirkii qurba joogta Soomaalida ee ka dhacayay magaalada Dooxa ee Qatar 2024. jazaakum allahu khayran.